inay soo gaaraan meeshan waa wax fiican waxyaabo badan oo shakiyo ay iska jireen iyo waqti dheer hadda maanta waa lagu wada dhan yahay meeshan inta badan wax yar mooyee inta badan waa wada joogtaa laakiin waxyaabo badan oo iska qaldanna waa jiraan saaka waxyaabo laga fiican yahay fara badan oo soo aragnay oo waxaanu gacmahayna iyo lugaheena isku geysana laakiin inta ku caasimayna in suunka la iska furo dharka la iska kabaha la iska baxsho xildhibaanadu iska faraxsan anoo la yaaban aan meeshan waxaan xildhibaanadu iska faraxsanba oo waxa nagu dhaca saaka waa markay ugu horeysay waddanka aan ka maleysay meeshan waa markii ugu horeysay dib mala insha Allah markii dambe saas inaysan nagu dhicin aan ka shaqay doonaa hadii Allah aan diraayo waa in xildhibaanada ismiin meeshan waxay ku dhaaraan ay noqoto mid sax ah oo waxay ku dhaaranayaan doonaan ay qabtaan in dhaartooda ka beeshay ayaan sheegay bis Bimaalow Center moolka Bimaalow bari dhaweyd anoo baabuur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimaalow Center xog balaaran ma naga siin kartaa haa moolka Bimaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay ma xarunta ganacsiga ee Bimaalow baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo bilaash maaha hadalkaygu Bimaalow Center waa mool baaxad weyn oo boqolaal shay oo kala nooc ah barta aad ka helayso qiimuhuna boqon goys maaha tayadu waa mid la hubo boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen wax kasto baahidaadu tahay badeecati u dambeysay beledkeena looga adeegto ha ahaato electronic baakadaysan wax kasto suuq looga baahdo bakeeriba ha u yaraato waa barta aad ka helayso Bimaalow Center moolka Bimaalow waxa uu ka kooban yahay dukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabiyay waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh maacuun noocyadeeda kala duwan qalabka electroniga sida qasaaladaha frinjeerka kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan make up tayadiisu sareyso iyo udug nooc kasta leh dharka dumarka waa labiskii u dambeeyay oo quruxdaada soo saaraya qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Bimaalow Mall adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada kulayl iyo rafaad waqti badanna uusan ka lumin qiimuhuna waa mid aan ku eriyay Bimaalow Center xarunta ganacsiga ee Bimaalow barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa bakaaraha iyo agaarka masjidka barakaysan ee macallin Bimaalow Bimaalow Center moolka Bimaalow bari dhaweyd anoo baabuur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimaalow Center xog balaaran ma naga siin kartaa haa moolka Bimaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay ma xarunta ganacsiga ee Bimaalow baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo bilaash maaha